fiiska champion fiiska hoos maadaama madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybtiisa nafaqeynta qaranka ayaa maanta tababar iyo aqoon wadaarsi u qabatay ilaa 35 xubnood oo ka kala socday hay'adaha alaamaha dawladda ee ka howlgala xarunta gobolka saaxil ee Berbera dawladda hoose magaalada Berbera iyo ururada rayidka tababarkaasi oo sidoo kale ay ka soo qayb galeen ku-xigeenka duqa magaalada Berbera iyo madaxa arrimaha bulshada ee dawladda hoose magaalada Berbera ayaa ugu horeyn halkaasi hadal waxa ka soo jeediyay Sakariye Daahir وأزوجه حليلك فيسكا champion فيسكا نفقيتها قرنكا وحنا وكور ما يتبرك عسي ينحر كيسة كوسا فانا رماها النفقة وحن ما أنت جوجنا دقمدي بربراء ونسكوجني مني برنامج ككروقات ده نفقة قرنكا برنامج كاس وهوسي ما تحفيز كما دحمنا كحجينك إن وجدده وجوين برنامج كني أمبا diiradda saaraya amba targetkiisu yahay waxa weeyaan waa la dagaalanka nafaqa darrada markaan nafaqa darrada ka hadlayno caadi ahaan waxaanu aaminsanahay wasaaradda caafimaadku inay shaqadeedii tahay laakiin daraasad badan oo UN-ta iyo hay'adaha kale ee ku takhasusay arrimaha nafaqada iyo caafimaadku waxaa la ogaaday inuu maxayday wasaarad quraati ku filnayne uu barnaamijkani taabanayo sektarro kala duwan amba qaybo kala duwan oo wasaaradaha kala duwan madaxa ururada madaxa bannaan iyo sidoo kalena agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose magaalada Berbera iyo isuduwaha caafimaadka gobolka saaxil ayaa iyaguna hadalka ay soo dabamareen waxa ay kaga warameen nafaqa darrada iyo waxyaabaha keeni kara iyo sida loogu baahan yahay in laga hortago oo qayb ka ah dadaalada guud ee qaranka Soomaaliland ugu jiro sidii kor loogu qaadi lahaa nafaqada oo ka kooban 34 urur oo isugu jira kuwa maxalli ah kuwa caalami ah labadaba sida magacaba ka muuqata waa kor u qaadista nafaqada qaranka kor u qaadista nafaqada qaranka marka laga hadlayana macnaheedu waxa weeyaan inuu dimensions fara badan yeelanayo ha ugu muhiimsanaadaan wasaaradaha caafimaadka iyo maadaragtay wasaaradaha kale relatedka la ah ee inta badan nafaqada caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka ku maadaragtay ku foogani ha ugu muhiimsanaadaan faraxsanahay maanta Berbera in lagu qabtay barnaamijkan lagu soo la isku fahansiinayo ama laga tashanayo sidii loo daadajin lahaa barnaamijkan nafaqada qaranka kor loogu qaadayo waxaan ognahay heerka nafaqa darradu inay aad u sareysay sanado badan 2012 oo kale aad u sareysay sanadba sanad ka sii dambeeya in dadaal badan la sameeyay sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac ayaa isaguna ka hadlay tababarkaasi iyo xogta ku dugan iyo sida loogu baahan yahay in laga faa'iideysto maamul ahaan anaga farxad bay noo tahay in degmada Berbera ay noqoto degmadii lagaga tashanayay barnaamijkan aad iyo aad soo dhaweynayna waa ogtihiin nafaqada qaranka marka la sheegayo dad badan bay si saameynaysaa waxa kamid ah hooyada iyo dhallaanka iyo dad badan oo kala nugula oo waxa jira ama waaweyn ama maaragtay bukaana Cabdi Salaam Xaliil Sheekh Cusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera